warbal ilaahaan ku dhaarshiyay ninka ciidiisii dadkiisii leh Kenya hatima ha qabsato adiga amar ka qaadan maayee Kenya amar ka qaadanaya ninkaas ma Soomaaliya ma Soomaaliya ma Soomaaliya qof kasta oo Soomaaliya ku jirto oo xorriyad oo Soomaaliya ku jiro gasho calooshaada inaad Kenya la dagaalanto sababtoo ah way Kenya kuwa wataana waxa way Soomaali ma rabaan Soomaalina ma inay Soomaaliya kala gooyaan bay rabaan inay gumaysiga ay ku jiraan geliyaan bay rabaan in maanta dhiig naga daadanay oo Kenya la dilayso meena waxa laga xumaadahay calankan aad arkaysaan waa ramsiga kaliya oo nugula yaqaan saddex shay dal hadii laga waayo waa no man's land cid kasta qabsanaysa dawlad tanfiidi ah oo wax fulisa hadii la waayo shacab hadii la waayo dhul hadii la waayo saddexda baan naga mahayn waxaan walaalayaal isugu nimid ajantayaasha baan rabaa inaan guda galo qodobka koowaad ajantayaasheenu waa dhowr qodob waxa ugu horeeya inaan dadkeenan halkaan isugu yimid aan xoojino taageerno fikirkii shalayta ka soo baxay dawladdeena oo ahaa in la bedelo ciidamada Kenya oo sector 2 X-Man jooga oo lagu bedelo ciidan dhexdhexaad ah oo Afrikaan oo dadka u dhaxeeya dawladdeena fikirkeeni ka soo baxay qodobka koowaad inaan ku taageerno oo aan muujino taageerada aan la garab taaganahay qodobka labaad waxa weeye ajantayaasha qodobkiisa labaad dawladda federaaliga Soomaaliya in ay gurmad degdeg ah u dirto gaarsiiso maatadii lagu xasuuqay magaalada Kismaayo iyo hantidii lagu burburiyay oo shacabka Soomaaliyeed lahaa isla mar ahaantaasna dawladda Soomaaliya ay kula xisaabtanto dawladda Kenya hantidii shacabka Soomaaliyeed ay burburisay marka waxaan hadda rabnaa inaan guda galo hawsheeni waxaan rabaa inaan u yeero soo kalmadaha ku haboon halkaan nooga yiraahdo Colonel Umar Diiriye Cigaal waxaan leeyahay dalka annakaas kale nin Ethiopia ka yimid nin Kenya ka yimid midna mare waa wadanka annaka dadka naga masaakiinta oo xukuumada iyo xaafadada iyo waxa naga la gumaadayo uma dul qaadan doono uma dul qaadan maayo waxaan leenahay hanooga baxdo wadanka naga Kenya dawladda Soomaaliya waxaan leenahay wax inay leexleexsan maahan dadkaan ka anaga badisho anaga wali dawladda Kenya ka baxdo wadanka dad uma imaanayeen nabadgelyo wadanka ka samayso waxay u tahay inay dad gaar ah ay bariga taasho dad gaarana ay leeyso haddii dadka lagu leenayo dawladdeedii ay bay taageersan yihiin lagu leenayo dawladda way waxa dadka lagu leenayo taageerada dawladda way wax dadka shacabka lagu leenayo masaakiinta hadda waxaan dhageysanahay 67 dumar iyo caruur ayaa istartaan 67 bal iska daa raggaas yarkooda ama dhintay rag gudaarag dagaalamay gabadhan umusha oo ilmaha xun wadata iyo ilmaha saqiirka oo leejika ama gujika ama ay naaska siinayso maxay kalabsadeen maxaa laba qabiil oo dagaalantay oo Soomaali ah dawladda Kenya oo nabadgelyo u taala seebay ugu kalsoonaan ka tahay qabiil layso qabiil la ay tiraahdo sidii laba wiil walaalaha mid ka yaru wiil kale oo dilo intuu ka kale ka adeegay oo yiraahdo wariya xawilka iga dish oo kale in sidii waxa tuulayso ay mid loo cayso waxaas la soo wadanka annakaas kale ilaahay baa Soomaali naga dhigay Soomaalinimadana aan wadankeena ku xoreyno waxaan ku baaqayaa dadka Soomaaliyeed dadweynaha Soomaaliyeed oo muuqaal iyo maqal bar ama yaqaan bidaan ay arkay waxaan u baaqaynaa wadanka jihaad buu baahan yahay jihaad Soomaalinimo u baahan yahay mid islaamnimo u baahan yahay mid xoolo ahaaneed mid dhaqan ahaan buu baahan yahay Kenya waa in laga dagaalamaa Soomaaliya inaysan mar dambe soo gelin waxaan ugu bishaareynaa dawladda Kenya inaan la dagaalami doono haddii Ilaahay idmo oo idanka Ilaahay ay noqoto Kenya waa la dagaalamayna qof kasta oo Soomaaliya ku jirto oo xorriyad oo Soomaaliya ku jiro gasho calooshaada inaad Kenya la dagaalanto sababtoo ah way Kenya kuwa wataana waxa way Soomaali ma rabaan Soomaalina ma inay Soomaaliya kala gooyaan bay rabaan inay gumaysiga ay ku jiraan geliyaan bay rabaan ma suuroobaysa marka
ama hooyadiis iyo aabihiis iyo walaalkii ninka la gumaysanayo inuu aniga ilmahayga iyo naagtayda iyo carruurtayda gumaysi geliyo ka yeeli maayo. ومعصية يا عمر ديري عقال كورنيلكو حنقص دوينا يا هدنا سلطان بشير سوق وغير هذا الفكر وحبنا سلطان كثير بيرها صوماليا konton iyo saddex guuradii calanka Soomaaliyeed maalinkii ay labada gobol midoobeen goboladii koonfurtuna ay calankoodii si rasmi ah u taageen ayaa weeye maanta konton iyo saddex sano ayaa ka soo wareegay in maanta dhiig naga daadanay oo Kenya dilayso meena waxa laga xumaado ahayn السلام عليكم ورحمة الله. أنا هذا كسر ويني يا دولية سرع شهر. علن كان أنا قدرت كود أختيان. ضلنا وحكوا أكن أسوق بلوغ وسكا. أنا وحنو دارني إن ندافع عنه إن السحر نوصل طابا. أيام دارني. dadku u dhaartay baan nahay dadkii u taagnaayeen calankaas maanta 53 sano ka bacdi meesha aan maraynana waad aragtaanba xadka aan maanta maraynana waa xad aan annaga isu geysanay oo meel kale nooga lama imaado waxaan annaga isu gacnahayna ayaan ku keensanay waxaan annaga gacnahayna ku keensanay maadaama gacnahayna annaga aan ku keensanay waxaan leenahay astaghfirullah inaan dhahno oo ilaahay inaan u noqono oo aan midnimadeena iyo walaalnimadeena iyo ehelnimadeena iyo qaraabnimadeena iyo calankeena iyo dowladnimadeena dib aan u xasuusano meelaan carruurteena geysana aan helno dalkeenana nabad aan ugu dabaalno intaan ka fikiri lahayn in calankaas 53 sano ka bacdi in la kala googooyo oo qolaba calan ay taagato oo hadda waxaa soo dhaw abgaalna in calan abgaal ku yaal inay taagtaan meel gooni ka taagtaan kullana شيقالنا إيميل تاع علن شيقال أي كتاعته كنا أي كتاعته مشاس علن كده إنه مشاس كل واحد قيمة لا الله يسوع علن كاس قيمة لا أنت هذا تناديها يوحصو إنه صور مرتبة تاريخ هان وحن صور مرتبة مجال ده هرجيسة إن ليري من سرقالة أو دورية أو ليري عبد القادر حسن أو دورية إن ليري ديوردان أديك أتكون دولة إنساني ما دام عن دورية هاي ليري وحن كابدلنا إثيوبيا أيام قياننا calanka labada dhinac labada kiliyood kaga yaala diyuuradda oo Soomaaliga ah ayaan waxaan u bedelaynaa calanka Itoobiyaanka u bedel si aan u qayaano oo loo duqeeyo Itoobiya waxaa dhacday in dawladii oo dhan ay isku timin sarkaalkaas oo yiri calanka Soomaaliya la taabanaya wax walba dhacaan labadaas mid inaad soo gashay waa inaad walaalnimada aan aqoonsanaa qabiilka iyo dhibaatooyinka iyo waxa nooga siday noo gashay waad u jeedaan waa inaan ka baxna haddaadan ka bixin ogow inaad cid kasta ku soo haminayso war Kenya weligeedna ma soo hamin anaa military i weydiiyey nolosheena ciidamada markaan aniga Kismaayo waxaan ka ahaa taliyaanka 19 sano waxaan ka ahaa taliyaha ciidanka cirka ayaan ka ahaa waxaan wala warqad la ii soo qorjay amba ha ii soo qoran madaxweynaha amba ha ii soo qoran maxamed cali santar amba ha ii soo qoran taliyaha ciidanka cirka maalin walba Kenya ku xad gudbaa la igu soo qoran la igu ganaaxay anaan la igu ganaaxay waa xad gudubkii maanta xadka aad maraysiin waad u jeediin bakaaraha idinku fiirsan bakaaraha waxa keenna waa qabaa'ilka aan isku darsano foolxumada aan ku kala joogno foolxumada aan ku jirno inaan ka baxno waa dadkaas waa inaan u gurmano dadkaas walaalaheena waxaan u gudman karnaa annagoo xaqa sheegno maxaa waaye xaqa waxa weeye Kenya waa dadka bax هذا هو عن لنا مدى كل ورقة دولة درسكا إن النجاحات سيدا شرعي قرن يونايتد نيشنز ما أنا نقدر كيني مد أبي كينا معهم مد قبيل إيه كينا معه واشاء نودكس وإن يكبر عن ذلك كيني السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولسه ما تصنتهاي هذا الكاغي غير هذا قيمها لها أو يعلمها لها أو ku fadhiyay wadada dheer oo ku saabsan Soomaalnimada iyo wadanimada waan kaaga mahadcelinaynaa anagana Allaah noo anfaco waxaan hadda ku soo dhaweynayaa Sultan Umar
kusoo dhawow Sultan Axmed. dhulkaaga arrin umaa la yidhaah caawa haddaad halkaa iska aadid adoon waxba haysan ayaad dhexdiisa kuna noolaanaysaa kana dhargaysaa haddeer derbigaas ma seexan kartaa maxaa ku seexiyaa lagu leeyahay meesha baabuur meel ma dhigan kartaa baabuurkaad wadatid waa inaad lacag ku ridtid war ilaahay ka baqa ee dadkiina dhulkiina oqoonsada war dhulkiina oqoonsada waxaan ka xumahay dadka soomaaliga ah ee u jeeda dad walaalahooda madfac lagu xasuuqay ee dhulkoodii inta loogu yimid lagu baaba'shay dad soomaaliya ayaa waxay leeyihiin raalli ka ah ninkaas waa soomaaliya u fursa raalli oo ka yihi warbal dadkaas baalasha waxa lagu qoro ha lagu qoro ilmihiisoo gumaysi u rabaa asaga waxaa weeye halkaasuu u dhintay qabiiloo ku adeeganayaa berrina waa tegay war dhulkiiyuu dhiibaya soomaalina waa sheeganaya staliin ninkii ruushka ka xoreeyay dagaalkii yacni maaragtay labaad adduunka 2 malyan ayuu wuxuu ku hayay xabsi oo qofkii ka hor timaadaba waa uu xiri jiray markii mooska loo soo gaaray 50 mayl ayuu wax alla wixii xabiska ku jira soo saaray ciidamada cagaarnaaya la yidhahda waa la wada og markaasuu wuxuu soo keenay bank weyn markaasuu yidhi aadinka aniga ima aad jecliidina anaa idin xiray anaa idin dilay anaa idin magacisiiyey anna waxaan ahay shaksi beriyaan dhimanaya dhulkiinni waa la qabsaday aniga hay eegina war ciidiinna eegee dhulka u dagaalama qoryaha hore laga siiyey ciidamada cagaarnaaya la yidhaha waa nimankii dheriga karsanaya geliyey generaalka uu jeclaa Hitler nimanka geliyey nima xabiska laga soo saaray ciideedu u dagaalamay war bal ilaahaan ku dhaarshiiyey ninka ciidiisii dadkiisii leh Kenya ha timaado ha qabsato adiga amar kaa qaadan maayee Kenyan amar ka qaadanaya ninkaas ma Soomaaliya maaha Soomaali ninkaas maaha Soomaali